aan dib ugu laabano wararka ku saabsan wadankaasi Mareykanka iyo doorashadii dhawaatan ka dhacday ee uu ku guuleystay Joe Biden. Hadaba waxa isha lagu hayaa siyaasadiisa uu kula dhaqmi doono markuu xilka la wareego bariga dhexe, arrimaha dhinaca dagaalka Yemen, heshiiska nuclearka Iran ee la laalay iyo waliba saameynta Turkiga. Umurtaas waxaan ka wareysanay Dr. Ahmed Sheikh Mohamed Tiir, waxa uu waramay Cabdi Xaaji Atoosh. Joe Biden waa nin khibrad badan oo ilaa iyo 48 sano ku jiray Koongareeska iyo sanadka 1972 ilaa waqtigan asaga ah. Waa nin khibrad badan u leh bariga dhexe, waa nin khibrad badan u leh caalamka, waa nin da'weyn oo hadda aan wax ka fakanaynin. Marka Joe Biden wuxuu uga shaqayn doonaa bariga dhexe si ka duwan siduu Trump uga shaqayn jiray oo ahayd si caatife iyo laablakac ahayd. Wuxuu uga shaqayn doonaa saanfila in uu dhiirigeliyo xorriyadka iyo xuquuqda insaanka, dimuqraadiyiinta ayuu ka shaqayn doonaa. Lama noqon doono saf qaybaha diktatorka ee adduunka ka jiro. Dagaalka Yemen ayuu joojin doonaa sida ugu dhaqso badan soo ballan qaaday. Marka siyaasadiisa waxay noqon doontaa siyaasadda liberalka la yaqaano ay Democrats ku shaqeeyaan oo kii Obama xoogaa ka duwan. arrintii Iran iyo Donald Trump ka dhaxaysay oo meel xulna gaartay, xukuumaddii Obama uu ka tirsanaa Joe Bidenna ay heshiis la gaartay xagga nuclearka ah, maxay noqon kartaa siyaasaddan hadda cusub ee ku wajahan Iran? Joe Biden wuu ballan qaaday inuu soo celin doono heshiiskii nuclearka ee Iran la galeen. Iran aad bay aan u malaynaa inay ugu faraxsan tahay imaashada Joe Biden, waayo waxaa soo noqon doona heshiiskii nuclearka. Wuxuu isticmaali doonaa xooga cunaqabatayna oo uu ka adkaan doonaa sidii madaxweynihii asaga uu u ahay madaxweyne ku-xigeenka ee Barack Obama, laakiin wuu ballan qaaday inuu soo celin doono heshiiskii asaga ahay ee lagu ballamay ee uu Trump ka baxay. Sacuudiga oo Mareykanka saaxiib dhow la ahaa, gaar ahaan Donald Trump oo intuu xilka hayay aad ay isugu dhawaayeen, oo xitaa Trump la aaminsan yahay inuu ka gaabiyay dagaalkii Yemen iyo dilkii Khashoggi. maxaan ka ognahay waxay noqon doonto siyaasad ahaan? Horta siyaasadda Mareykanka ee bariga dhexe isbeddelkeeda aad uma badno. Mareykanka inuu Sacuudiga ilaaliyo waa maslaxadiisa istiraatiijiga oo weligiis taas kama uu dagaay, laakiin waxyaalo badan oo caruurayn oo horaan ka jiray ayaa hadda uu ka hor imaan doonaa. Arrintii Jamaal Khashoggi baaritaan ayaa lagu samayn doonaa. Yemen wuu ballan qaaday dagaalka inuu joojin doono. Diyaaradihii F-35 ee loo ballan qaaday ma siini doono dowladaha khaliijka. In badan oo hadda oo Trump oo caatife ahayd ku shaqayn jiray, waxaad moodaa inuu ku shaqayn doono ninkan ruug cadaa siyaasadeed. Dalka Turkiga haddaan u imaano, waxa Biden uu horay u sheegay in awood uu siin doono mucaaradka dalkaasi iyo kooxda PKK oo Turkigu uu aqoonsan yahay argagixiso. Soo ma muuqato inuusan indha fiicnayn xiriirkii kala dhaxeeyay Turkiga? Macna markii siyaasadda lagu jira doorasho way ka duwan tahay marka waaqaca la yimaado, kursiga la yimaado, arrimihii si toos oo la falgelayso. Turkiga waa dawlad gobol waa xoog leh, kama maarmaayo Mareykanka. Wuxuu uga maarmi doonaa Suuriya, uga maarmi doonaa Ciraaq, uga maarmi doonin dawladahan muslimiinta oo Ruushka gobonimada ka qaatay ayuu uga maarmi doonin. Marka marna ma filaayo, waa dawlad naanta ah. 3 shay ayuu ku ballan qaaday inuu samayn doono. Calaaqaadka Yurub oo halay Trump inuu soo celin doono, khaasatan NATO ku soo beeri doonaa naadigii Paris ee bay'ada iyo cimilada. Marka in badan Yurub u soo dhawaani doona. Marka Turkiga geeska ma gelin doona mar haddii dawladda Yurub soo dhawaan ay jirto. Wixii la lahaa barigii oo doorashada socoto xamlada ay arrimaheeda ahayd hadda ma soconayso. Markii kursiga lagu fariisto waaqaca la arki doonaa. Marka waxyaalahaas waxay ahayd hadal loogu talagalay shacabka, ma ahayn arrin oo u malaynaa inay fuli karto waqtigaas. Turkiga iyo Mareykanka ma kala fogaan doonaan. Sacuudiga dawlad ahaan iyo Mareykanka ma kala fogaan doonaan, laakiin isriiriix jiri doona weligeed wuu jiraa, waana jiraa ka.